macadka qaran ee caafimaadka dadweynaha Djibouti ayaa shalay subaxii howlgallo ka dhana kaneecada waxa uu ka sameeyay xaafadda Arxiba. Howlgalkaasi ayaa waxa uu uga baxay laba qaybood. Qaybta hore ee howlgalkaasi ayaa ahayd buufinta baabuurka wax buufiya iyo qaybta labaad oo ahayd buufinta gacanta oo lagu sameynayay biyaha dhulka joogtada si looga hortago in kaneeca halkaasi ka dhalato. Buufinta saddexaad iyaduna ahayd buufin lagu buufinayo masqulaha amba kaniifyada. Howlgalkaasi ayaa ahaa wasaaradda caafimaadka mid ay ugu talagashay sidii looga hortagi lahaa kaneecada amba isla markaana loo tirtiri lahaa. aan tagno kaartiga Arxiba taasoo laga hortagayo waxa la wixii ku saabsan cayayaanka iyo xawayaanka duula ay ka mid tahay kaneecooyinka la kala yiraahdo ku dhasha gaar ahaan kaniifka amba oo kaneecada keenta xanuunka kaneecada taasoo maanta halkan aan ku walnahay wasaaradii oo dhan kaartigan Arxiba si loo dhimo waxa la wixii ka imanaya ijaanka barnaamijka ijaanka iyo waxa la wixii la halmaala kaneecada saawir arkaysiinba waa kan ekiibkii nisbadiga nala jooga iyagoo sita qalabkoogii iyo tinuugii taasay hawl weyn ay ka galeen maanta Arxiba iyagoo shaqaalihii kuwii ugu hooseeyay ilaa kuwii ugu sareeyay halkan ay joogaan ay u galayaan kaarti amba hudhud si ay wax uga qabtaan caafimaad darada ka imanaysa xanuunada ka imanaya caafimaad darada ay ka mid tahay kaneecadu iyo